waxaan salaamayaa wasaaradda iyo madaxda reer Somaliland iyo gudoomiyaha xisbiga UCID Faysal Ali Waraabe waxaana iyana bogaadinayaa وكان وابس كبتين قالوا لي أنا قلت محمد سياد برهان الله يسنى وحزب جاي بركة سنة كل مية قدومية كحجاها كل مية محمد كاهن وحان إيانا السلامة يا بقادين إيانا وفد جاي كان غير خاتمة قدومية برلمان كي وزيرة أنت كلا تمي شباب كلنا نهاي وحان ربا وجهرين إنا أمهات نقو dadka reer Hargeysa ya khaasatan hotelkan aan deganahay ambassador sida sharafta leh naloogu soo dhaweeyay naloogu adeegayo magaalada uma aanan badnayn hadaan u dhaadhacno dadka magaaladu sida ay kalkacatooyo badan ay ka muuqato ay noogu soo dhaweeyeen waa ku mahadinaynaa dadka yagiina waa uga warramaynaa dadku kulley walaadna waa lagu kala maqnaa maantayba kow ii tahay meelaha aad joogtaan baa dib u dhac u yaala dad reer Khaatumatiin waa meelaha ay nagu caburiyeen oo hay'adihii wax dhisi lahaa dhulkan dhisay ay ka hor joogsadeen hadda afgariisiga waxa ay aad insult to injury waa qofaad dhaawacdo nabar ku dhufatay oo waliba ay ugu dartay nimankan nabaday abaarta iyo odolululka inay haddana nagu eedeeyaan oo yiraahdaan meelaha aad joogtaan baa dib u dhac ka yimi insha Allah waa ka bogsoon doonaa dadkuna hadday nabad helaan magaaladan waxaan dhisay ilaa haddaan ka baqayno waxa dhisay dadka dhistay dawladdu maamulka iyo nabadda iyo xaakim iyo meelo hadii la isqabto lagu waarun iyo ciidan arinta gacanta ku hay laakiin dadka haday nabad helaan sidii aboorka u shaqaysanaya wax dhulkooda dhisanaya carruurtooda wax baranaya dawladdu waa inay u facilitate garaysaa ama ay u samaysaa oo rule of law kala dambeynaya sharci jiro ama legal framework xitaa ka dibadda ka yimi ama ka dhulka u dhashay hadduu investment meel gelinayo inay jiraan wax lagu kala baxo oo qofka hadii wixiisa lagu qabsado inay ku khasbin beeshiisii ama jilibkiisii inuu aado laakiin sharci lagu kala baxo iyo maxkamad ay jiraan midda aanaku aanu khaatumanahay Somaliland iyada danteeda u mooday inay khaatumo la hadlaan annaku waaba muran madoonto annaga dastuurkaygay ku taal shirarkaanu isugu nimaadnay ku taalaa inaanu wada hadal iyo nabad raadino annaka gudaha iyaga hadaanu khaatumanahay ku wada noolaano dariska iyaga kula noolaano geeska Afrika nabadda laga wada raadiyo haddaba tallaabo Rome was not built in one day ama Hargeysa was not built in one day markay Hargeysta ahayd ee hore dee laga soo gudub waa magaaladan caasimadda ah ee laga yaabo 1 milyan wax ku dhawo dadii inayba ku nool yihiin hadana mudday qaadatay day ugu yartahay 100 sano iyo saayid bay qaadatay waxaan rabaa inaan u gundudego wax yar ka idhaaho bilow fiican baan maraynaa wada hadaladana mudday soo socdeen waa run markii hore in la isbarto in la isku dadoobo waqti qaadatay nimankiina hadda iyakoo qof walba wuxuu meesha la yimi ku dhagan yahay haddana ay dhex martay wada hadal iyo saaxiibtinimo iyo niyad sami waa intaasoo ay ummadii oo dhan la wada gaarsiiyaa meelay joogtaba annaku khaatumo haddaanu nahay waa run nabadna waa rabnaa waddankan Ingiriisku xukumi jiray ee magacii hadda aad idinku la wareegteen ilaa waa la wada lahaaye haddana waxay noqotay dawladda Somaliland war dawladda Somaliland kama mid ahayn haddana siday tahay kama mid noqonayno waxaanu diyaar u nahay
taa haddaba aynu maanta halkaa u wada fadhino in laga wada hadlo arrimo siyaasiya la isku hayaa xal siyaasiya loo baahan yahay ku dhiirasha loo baahan yahay leadership baa loo baahan yahay dadkanu dad la isku talayo la isku khasbaya ma aha qolaada way dhaceen soo jireen bayba ahaayeen intanuun hadda aad dawladda noqoteen noo dawladeyseen ciidamada tan iyo artilleriga iyo beebayaasha uun aad noola soo baxdeen bay xaalku meel fogaaday awal waa la isdili jiray waana laga heshiin jiray waa la yaqiin waxa la isku dilayo waxa laga heshiinayo intaasoo dhan ka soo gudub arrintan waa arrin culus weeye ummad dhan aayaheedii iyo mustaqbalkeedii iyo taariikhdeediiba waa tahay in laga doodo annaku diyaar baanu u nahay ilaahayna waxaan ka baryaynaa gidigeenba caqli iyo xikmad dii aanu ummaddan ugu horseedi lahayn nabad iyo nabad ku wada noolaasho iyo wax wada yeelasho iyo sinaan iyo cadaalad warannaku cidna marti u noqon mayno cidna magan u noqon mayno ciddii filaysa in hoostana la gelinayahay waanu cid marti u noqon war cidna marti u noqon mayno si cad baynu ama ku heshiinaynaa oo waxaan wada leenahay u wada binaynaynaa oo u wada dhisaynaa ama si cad baynu ku kala tegaynaa waxayna hadda u eg tahay si cad in lagu heshiin doono insha allah saasaan bilow fiicanna waa maraynaa bisha 10keeda Julayna iyadoo ilaahay roobina siiyey oo dhulku barwaaqo yahay oo xanuunadii ilaahay fanaanaygu nagu soo siiyey aynu ka bogsoonay xooluhu ha yaraadeen laakiin way isku fufi doonaan waxaan rajaynaynaa iyadoo burco boorweyntii hore ahayn laakiin dooniwaal iyo waxaanba ku soo arkay waa dhaweytaan soo maray dhir badan oo meesha lagu beeray dhir badan oo dhulka lagu beeray oo kulley beer miyay ahayd meel ku dhow ilaa burco dhir lagu beerayo horumarkuna siyaalo badan buu u yimaadaa ta ugu weyn ee horumarku waa nabad iyo cadaalad iyo wax la wada leeyahay yaa uun dadku salka ku dhigi karaa taasaanu ku hiranaynaa ilaahayna saan marka hore u sheegay waxaan ka rajaynayaa caqligii iyo xikmaddii ay u baahnayd ilaahay inuu nagu manaysto intan maanta hadda ay waajibkan uu saaran yahay ama wasiire ha noqdeen xildhibaanna ha noqdeen madax axsaab ha noqdeen halkan dad badan oo aaggaa ka yimi baa jira oo aan arkayay cuqaal iyo ismo iyo jooga oo reer khaatumo ah waxay u yimaadeen oo aan ogahay inay rabaan inay goobjoog ka ahaadaan maalintan taariikhiga ee halka ka dhacday war hadda 100% uma dhamin war kuwo waxay rabaanba aan la garanayno dhinac walba diidana waa leenahay war kuwo noo haysta intayada halka timi inaanan 10 qof ka badnayna waaba jiraan hadda isaga keligii meel taagan ka warkaa soo tabinayaa leh 10 qof wax ma gooyaan 10 qof wax ma saxiixi karaan war mas'uuliyad baa saaran war khaatuma maamul weeye ummaddu ay samaysatay war iskarabyaa laga fiican wareer Soomaaliland ayaynan ka filin inayna cashariyaan oo tafaraaruqa inaga cashariyaan war kama filayno waranba meeshooda hadaan joogo tabta ay yeelayaan baan yeeli lahayn taasum baan yeeli lahayn laakiin innaka qudhadoodi odayba wuxuu ku yiri laba wiil oo lagdamaya war ninka tabcaa yarkii kala yiraanba waa maqlaya roy danteena ku wada jirta Somaliland waxaan qabaana waxba ballan qaadi mayno haddaynu heshiino oo wax wada yeelano oo kalsooni bilaabanto oo la is aamino oo wax dhab la isku aamino war اعتراف لوبا يا لو غرغرتبا وكا كورينا ولا ميشينا الله ينوغو ايمانيا ميشا لفتيدا يا الله ينوغو ايمانيا
bal bahashu awal beel bay ku koobnayday inkastoo ahey la yidhaaho waa loo dhan yahay laakiin bahashu saxaaqiyay ahayd hadda haddii la isu wada yimaado wixii dhulkan ku wada noolaan jiray oo dhani ay midoobaan warana waxaan qabaa ictiraaf iyo horumar iyo qadarin yaynu ku hiran karnaa waxaana qabaa haba horeyse warrajo Soomaaliyeed oo taag ayan ka bilaabmayn wala xamar iyo meel kale iyo muxuu balad weyne iyo gaalkacyo kama bilaabanayso bay dhabana warkeeda bay iska daa waxa hadaba danayna baday aynu ku soo dhawaano hashamadii isma yeesho waxaynu u baahanay waa inoo muuqdaan war dhalinyarada tan halkan tuban ee markay xitaa wax barteen unemployment opportunities haday jirin ulay ka shaqeeyaan dhaqaale ay helaan ay xaas caruur ay guursadaan oo caruur yeeshaan war hadda intaas oo dhan mas'uuliyadda dawladdu way ka saaranta hadda ma aha in iyadu engine noqoto oo tiraa wax walba anaa leh laakiin aqligii iyo foreign investment laws ha noqoto iyo nabad waarta ha noqoto iyo legal framework aan sheegay ha noqoto midda qof kasta hadda annagayba nagu soo ururtay meelkaas oo lama degaan la yiraahdo oo waaba lagu murmayaa la yiraahdo the investment lagu sameeynaya ma jiro hadda tan qudhadeeda ma maqal weli investment ajnabi oo badan oo aan dekada berbera hadda ahayn iyo hawsha halka laga wado hadalka waa ku dheeraaday Ramadaan Kariim 10kii cashay dambaan joognaa ilaahay waxaan ka baryeynaa inuu laba talaba tii toosan oo yanagu gidigeenba oo hawshanna hadda maamulku ma laha war hawshan shacabka leh war hadaanu doono annagu iska murmi karnaa war waqtiguna waa dheeraan karaa war saxaafadda door weyn bay ku leedahay war saxaafadda wixii hore muqtadiyan aad iskaga ahaydeen nahnu ala diina aabaa'ina iyo kaas waa muqaddas iyo kaas waxa weeye cidii wax ka sheegtaa waa cadow maaragtay qaran warbahasha rogo oo waxaad xagga nabadda iyo wanaaga iyo isdhexgalka iyo wax wada yeelashada iyo barnaamijyo iyo maskax furan ku aada shacabka dalkan joogaana ee Soomaaliland tan aad idinku hadda tihiin joogaana waxaan ku kalsoonahay inay yihiin dad shaqaysan kara horumar samayn kara geeska Afrikana ka dhex muuqan kara hadayna inaku isu soo xidhin oo inaku isla tacaalin ana waxaan qabaa generation ka hadda dhalinyarada jooga ama kuway dhalaan hadii nabad iyo reerku uu dego oo cadaalad iyo sinaan iyo qofka ibn aadanka inuu xuquuq leeyahay qofka ibn aadanka inuu xuquuq leeyahay oo gabdhuhu xuquuq leeyihiin hadii inta lagu hirto war adduunku hadda meelihii hore investmentka la gelin jiray cidina Japan hadda investment badan uma kaxaynayso Americana looma kaxaynay war Afrika ugu badan hadda meesha investmentka adduunku China iyo Europe tartanka ka dhaxeeya wuxuu uga dhaxeeyaa maaha basis inay samaystaan inay investment geliyaan oo dhulkoodii intii la geli lahaa faa'iido badan laga heli lahaa waa soo xidhanta waraan ka mid noqono dalka aynu dariska nahay Ethiopia waxa ka socda waa wax qof kasta oo Soomaaliya meel kasta ha joogay oo runtii ay ku ridaysa maaragtay in leedin ka tagay inaad cidla taaliin wadankaas markii ugu horeysay dhaqaalaha ugu weyn East Africa markan waa Ethiopia Kenya maaha waa Ethiopia sababtay ku gaadhayna waxay tahay nabadda ay heleen madax fiican oo inspired visionary leaders ay yeesheen iyo investment badan oo dibadda uga timid waxaan u malaynayaa Franco-Ethiopian railkii yaraaye ka tagi jiray Djibouti ilaa Addis Ababa 1897 baan u malaynayaa waqtigii Menelik in la dhisay ka hadda Djibouti laga dhisay
kumaba eka Ethiopia waxa loo wadaa South Sudan Central Africa ilaa West Africa war innakuna dekedan berbere iyo hadda developmentkan iyo halka laga wado inay noqoto ayna meelaha ku koobnaan dhaqaalaha dhan ay taabato growth rate-ka iyo horumarka ay ka dhex muuqdaan wuxuuna dad yar oo kooban inay yeelan dadweynuhu inay dhaqaalaha iyo horumarka la gaaray ay wax weyn ku yeeshaan oo ay justice iyo cadaaladdu maaha xagga siyaasadda xagga dhaqaalaha ka basii dara aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan inoo wada rajaynayaana midhayn sheekhaaba ducayn doonee waxaan anigu intayda yar waayadan roobun baan u ducayn jiray roobkiina ilaahay ama coincidence ba ha noqdo oo marmarka qaarkood watermankaan sii fiirin jiray maalmahay ugu dhowdahay roob marka waxaan inoo rajaynayaa ilaahay inuu uga rajaynayaa laba talaba tiir oo inuu arta aynu saarno aad iyo aad baad u mahadsantihiin wabilaahi tawfiiq